Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada asxaabi mar kale iyo muuqaal cusub. 18 May 1974 Hindiya ayaa ku dhawaaqday inay tijaabiso bamkeeda ugu horreeya ee nuclear. Sannado yar kadib waxaa la shaaciyay helidda Bakistaan ee quwad nuclear si la mid ah Hindiya. Tartanka dhanka militari ee labada dowladood ayaa soo socday muddo sannado ah ilaa markii dambe uu soo gaaray tartanka quwadda cirka iyo diyaaradaha militari ee kala ah GF-17 oo ay soo saarto Bakistaan iyo Hiltigas oo ay farsameeyaan Hindidu. Haddaba muuqaalkeenan waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa awoodaha iyo waxtarka labada diyaaradood. Sannadii 1995 Bakistaan iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis is-afgarad kaasoo qeexaya horumarinta diyaarad dagaal oo jiilasha dambe ah. Isla sanadkaas waxaa mashruucii ku soo biiray shirkad laga leeyahay Ruushka waana Mikoyan, taasoo soo saarta silsiladaha diyaaradaha MiG ee khatarta badan si ay kaga caawiso labada dowladood arrimaha farsamada. Waxaana ka dhashay isku darka saddexdaas aragti diyaaradda GF-17 si ay ugu biirto quwadda ciidamada cirka ee Bakistaan, iyadoo ku soo baxda diyaarad casri ah, qiimaheedana uusan waali ahayn, waxayna awood u leedahay inay wajahdo diyaaradaha dagaal ee jiilasha dambe. Khubarada militari qaar ka mid ah ayaa tilmaama inay leedahay awoodda diyaaradda khatarta badan ee MiG-21 ee Ruushka, kaasoo ay dunidu ay aad uga baqdo. Arrinta xusidda mudan ayaa ah in qaab dhismeedka diyaaradda 58% ay ikhtiraaceen injineerada Bakistaan, halka 42% ay ku dareen khubarada Ruushka iyo Shiinaha. Xilli diyaaraddan ay noqonayso bilowga dhisidda diyaaradaha dagaal ee ciidamada Bakistaan. Sannadii 2017 waxay soo saareen militariga Bakistaan 70 ka mid ah nooca diyaaradaha dagaal ee Block 1 iyo 33 diyaaradood ah nooca Block 2 si ay ugu biiraan quwadda ciidamada cirka ee Bakistaan. Waxayna wadaan mashruuca diyaaradda Block 3 oo la aaminsan yahay inay ka dhignaan doonto guul weyn, awoodna u yeelan doonta xambaaridda hubabka casriga ah ee Shiinaha. Dhinaca Hindiya, 80meeyadii qarnigii tegay, Hindidu waxay dadaal ugu jireen sidii ay uga mid noqon lahaayeen suuqa soo saaridda hubka. Waxayna shirkadeeda militari ee HAL naqshadaysay diyaarad dagaal oo Hindidu kaliya ay soo saaraan si ay ugu bedelaan diyaaradihii Soofiyeedka ee MiG-21, taasoo militariga Hindiya ay ku tiirsanaan jireen waqtiyadaas. Waxaana garab ka siisa shirkad Mareykan ah, iyadoo ka soo amaahatay matoorada diyaaradda, weliba nooca loo yaqaano General Electric, laakiin way ka maarantay matoorkaas sababo lagu sheegay tanka xad-dhaafka ee diyaaradda loogu talagalay inay qaado inta ay horumarinta ku socotay. Natiijadu waxay noqotay diyaaradda dagaal ee Hiltigas, waxaana laga soo minguuriyay diyaaradda dagaal Faransiiska ee Mirage 2000. Laakiin diyaaraddii Hindidu 30 sano kadib waxay weli ku jirtaa horumarin. Sannadii 2019 Hindiya ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar tahay diyaaradoodu, waxayna ku soo bandhigeen carwada militari ee Euro India Military. Bandhigaas kadib, khubaradu waxay weli aaminsan yihiin diyaaraddu inay weli u baahantahay tijaabooyin dheeri ah inta aanan lagu darin howlgallada militari, taasoo ka dhigan qiimeyn ahaan mid ka hooseysa diyaaradda Bakistaan. Farqiga labaad waa heerka nabadgelyada iyo isku halleyn, taasoo iyadana ay kaga horeyso gorgorka Bakistaan dhigeeda galeerka Hindiya. Farqiga saddexaad waa culeyska iyo xawaaraha, taasna waxaa ku horeysa diyaaradda Bakistaan. Farqiga afaraad waa qaab dhismeedka iyo adeegyada dheeriga ah, aragti ahaanna waxaa ku horeysa diyaaradda Hindiya. Marka aynu eegno farqiga ugu weyn ee labada diyaaradood waa iibka suuqa iyo dalabaadka. Dhankaana Bakistaan ayaa farqi aad u weyn kaga horeysa cadowgeeda Hindiya, iyadoo diyaaradda Bakistaan ay suuqa iibka aad uga sareysa tan Hindiya. Sababta ayaana lagu sheegay dhowr arrimood oo ay ugu horeyso diyaaradda Bakistaan inay tahay mid la tijaabiyey ayna khidmadda ciidanka ku jirto muddo sannado ah, xilli diyaaradda Hindiya ay weli ku jirto tijaabooyinka ay ugu biiri lahayd adeegyada ciidanka. Sababta kale, diyaaradda Hindidu kaliya waxay adeegsan kartaa hubabka ay soo saaraan shirkadaha Hindiya, taasoo ka dhigan in dowladdii rabta iibka diyaaradda Hindidu ay waajib ku tahay iibsiga gantaalada Hindiya, taasoo ay dowladina ku dhiiran karin, iyadoo hubka iyo gantaalada Hindidu ay soo saaraan aysan ahayn kuwa la isku halayn karo 100%. Halka diyaaradda Bakistaan ay awood u leedahay inay adeegsato hubab kala duwan laguna soo saaray dowlado kala duwan.
Arrinta kale ee diyaaradda Bakistaan ka dhigtay mid ka iibsaraysatan Hindiya waa qiimaha lagu heli karo labada diyaaradood oo ay aad u hooseyso tan Bakistaan, taasoo ku qasbaysa dowladaha inay daneeyaan diyaaradda Bakistaan, gaar ahaan in diyaaradda ay awood u leedahay inay buuxiso booskii diyaaradda Ruushka ee MiG-21, taasoo ay adeegsadaan dowlado kala duwan, aqoon buuxdana ay u leeyihiin, halka diyaaradda Hindidu ay duuliyayaasha badankood aysan garanayn adeegsigeeda. Dhanka awoodda, waxaa xoog badan aragtida leh diyaaradda Hindidu ayaa awoodda iyo adeegyada dheeriga ahba kaga horeysa dhanka Bakistaan, laakiin diyaaradda Hindidu weli tijaabooyinkii looga baahnaa maysan ka gudbin, waxaana macquul ah inay jiraan cillado dhanka farsamada ah kuwaasoo aan weli shaaca laga qaadin ilaa waqti xaadirkan. Haba badnaatee sheegashada Hindida ee ah diyaaradooda inay ka wanaagsan tahay tan dariskeeda ee Bakistaan. Xilli Bakistaan ay ku mashquulsan tahay horumarinta diyaaradooda iyo diyaarado kaloo cusub, iyadoo Islaamabad ay tijaabinaysa aragti ah in diyaaradda Mareykanka ee F-16 ay ka dhigto mid xambaari karta madaxyadeeda nukliyeerka, taasoo la micno ah in labada dowladood ee dariska ah ay kusii fogaanayaan tartanka dhanka hubka ah, iyagoo isku diyaarinaya dagaal ay dunidu u aragto mid fog halka labada dowladood ay u arkaan mid dhow.